dagaalkan hubka culus liisku adeegsanayo ayaa waxa uu goordhow ka qarxay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. Dagaalka oo aad u xooggan ayaa waxa uu u dhaxeeyaa ciidamada maamulada Puntland iyo Somaliland oo waayadan isku horfadhiyay deegaanka Tukarraq. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay maamulka Puntland weerar gaadma ah ay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Somaliland ee Tukarraq. Dagaalka oo hubka culus uu ku bilowday ayaa ku faafay deegaano kale waxaana la soo sheegayaa in labada ciidan ay isku dirsadeen gurmad waxaana qaybo ka mid ah deegaanka laga maqlayaa diryanka madaafiicda. dadka deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool ayaa ku soo warinaya inay jiraan barakac isla markaana dagaalka iminka socda uu yahay mid ka duwan kuwii socday maalmahan. Maamulka Puntland ayaa isbuucii tagay ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan deegaanka Tukarraq waxaana xigay dagaalka iminka qarxay. dhinaca kale deegaanka Tukarraq ayaa waxa ku qulqulaya gaadiid dagaal oo gurmad ah labada dhinac waxaana laga cabsi qabaa inuu sii xoogeysto dagaalka Tukarraq.